allaha u naxariistay duuliye axmed guure oo muddo dheer ka shaqeynayay arrimaha duulinimada ee diyaaradaha 25kii sane ee ugu dambeeyeyna waxa uu maamule ama mulkiilo ka ahaa barta hiiraan online islamarkaana uu ahaa tafaftiraha guud ee bartaas iyadoo hiiraan online ay ka mid ahayd warbaahinta dhinaca online-ka ee muddo dheer shaqeynaysay weliba 25kii sano ee lasoo dhaafay. haddaba si aan wax badan uga ogaano doorkii warbaahinta iyo aqoontii kale ee xagga duuliyanimada axmed guure uu lahaa allaha u naxariiste waxaan ka wareysanaynaa xasan stiila oo ah saxafi ay soo wada shaqeeyeen waxna ku qoray bogga wararka hiiraan online. xasan aad iyo aad baa umahadsan tahay. marka hore waan u wada tacsiyeynaynaa geerida axmed guure, bal intaa ka taqaanay ayaan rabnaa bal inaad nooga waranto axmed qof noocee ah ayuu ahaa. waa mahadsan tahay maxamed. kabtan axmed xaaji cilmi guure waxa uu ku geeriyooday waqtiga geeska africa ee xalay abaarihii 1 iyo maaragtay qadar 20 daqiiqo ah saa sheegtay magaalada Ottawa ee dalka Canada. axmed waxa uu ku dhashay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan sanadkii 1956. axmed horaantii noloshiisa wuxuu kusoo qaatay magaalada Beledweyne oo caasimadda gobolka Hiiraan ah ilaa markii dambe uu usoo wareegay magaalada Muqdisho, halkan oo uu waxbarashadiisii qayb ka mid ah uu ku qaatay. axmed waxa uu runtiisa sheegtay maxamed uu bartay pilotnimada isagoo ka bartay xaruntii Lufthansa Aviation Center oo ku taala dalka Jarmalka. axmed kadib wuxuu dib ugu soo noqday dalka Soomaaliya isagoo markaa haminayay in Somali Airlines uu ka shaqeeyo. waxa uuna fursad u helay inuu mataqaanaa ka mid noqdo shaqaalihii diyaaraddii Somali Airlines. axmed muddo ayuu ka shaqeynayay saa sheegtay markii dagaalada sokeeye waddanka ay ka dhaceen sanadkii 1991 axmed kadib waxa uu isagii qoyskiisa ay u wareegeen dalka Canada. halkaas ay waxbarashadiisii uu kasii xanaqaaday. waxa uu maaragtay halkaa uu ka bartay computer programming college Ottawa ku yaala. kadibna waxa uu runtii uu usii wareegay inuu maaragtay aqoontiisa xagga telecommunication industry uu mataqaana usii wareegay 99kii ama 1999kii axmed waxa uu door muhiim ah uu bilaabay inuu ka ciyaaro sidii diasporada Soomaalida maaragtay qurbaha jooga ay warar sugan oo wadankii ku saabsan ay u helaan. Hiiraan online ayaa dhalatay Ottawa 1 July 1900 waqtiga saxda ah oo dalkii iyo dibadiiba maaragtay u gaarsiiyo Soomaalida meel kastoo ay joogaan maadaama wadankii xilligaasi maaragtay dagaaladii ay ka jireen. xilligaas iyo maaragtay iyo barnaamijyo intaba waa ay sii daynaysay tani xilligaasi. beelkii uu u qaaday nimada iyo pilot uu ku hamilo asaaso diyaaradii Somali Airlines ilaa markii dambe uu master degree uu ka qaatay airline management jaamacad la yiraahdo Confertory University sanadkii 2019 kadibna howshiisii iyo hamigiisii mataqaana dib u dhiska dalka iyo diyaaradii waxaa aqoonsatay wasaaradda duulista hawada oo markii dambe uu noqday senior advisor maaragtay kala shaqeeya ama kala taliya arrimahaas oo marka axmed saa sheegtay aniga waxaan isbarnay muddo
ka badan 10 sano oo aan soo shaqeynay oo wuxuu ahaa nin aad u jecel saxaafadda ku dhiirigeliya dhalinyarada inay horumariyaan xirfadooda xagga shaqada dad badan soo gacan qabtay inta badan warbaahinta ragga gabdhaha ka shaqeeya maanta intooda badan ama ha joogaan dalka dibadiisa ama gudahiisa intaba wuxuu u ahaa macalin wuxuu u ahaa tababare wuxuu ahaa nin soo gacan qabtay aadna u jeclaa maaragtay xirfadda saxaafadda in sida saxda ah loogu adeego shacabka soomaalida. Axmed, waxaa lagu tilmaamaa in warbaahinta dhinaca markaan eegno online-ka barta Hiiraan online in ay ka mid ahayd warbaahinta sida dhexdhexaadka ah wax u qorta oo runta soo gudbisa muddo ka shaqeynaysay adiga, bal dhinacaas ka waran sugnaanta wararkeeda siduu ahaa? Hiiraan online astaanta ugu weyn oo lagu yaqaano waxa waaye saakaada hadda ka dhawaajisay sugnaanta wararka iyo xaqiijinta dadkaas kala duwan oo mudada soo shaqeeyayna astaanta ugu horeyso marka shaqaaleysiinta xaggeeda ay timaada lagala hadlayo waxay ahayd maaragtay dhexdhexaadnimada sugnaanta iyo maaragtay in wararka meeshan lasoo gelinayo ay ahaadaan kuwa xaqiiqda maaragtay ku salaysan. waxaan xasuustaa markii shaqada aan bilaabayay hadaladii uu maaragtay marxuumka Allah naxariistay uu igu yiri waxaa ka mid ahayd mataqaana una horeysay sugnaanta iyo maaragtay in warar xaqiiqda ku salaysan ma Hiiraan on dhaxaltooyada maaragtay Hiiraan ay leedahay oo lagu sii wado marka dhinaca warbaahinta iyo dhinaca kale ee shaqadii maaragtay pilotnimada. aad iyo aad Xuseen Xasan, waa sidaad sheegtay marka ma la isdhihi karaa muddadaas dheer Hiiraan online ay ku jirtay warbaahinta gaar ahaan online-ka waxay ku kasbatay magac iyo sumcad iyo wariyaal kala duwan inay kasoo shaqeeyaan qaar badan warbaahinta wariyaasha kasoo shaqeeyay Hiiraan online hadda inay udub dhaxaad u yihiin warbaahinta dunida? waa sheegtay maxamed dadka aan maaragtay la soo shaqeeyay maanta dowladda ayay ka mid yihiin warbaahinta internationalka ay markay udub dhaxaad u yihiin marka loo fiiriyo runtii 25 sano Axmed qof hadduu Axmed Guure uu maaragtay magaciisa maqlo dib waxaa kusoo dhacaysa Hiiraan waxaa durba kusii dhacaysa haddana maaragtay meel wararkeeda ay sugan yihiin oo xaqiiq ay tahay warkii Hiiraan lagu soo qorana uu yahay war biyo kama dhibcaan ah oo balansi ah oo maaragtay xigashooyinkiisina maaragtay ay isku dheelitiran yihiin. runtii dhaxalkaasi maaragtay waxay u tahay wax weyn Axmed ilaahay u naxariisto waana waxa lagu xasuusan doono haddii aad dib u sii raacdo taariikhdan waxaad soo arki kartaa dadka la soo shaqeeyay Hiiraan online ee maanta maaragtay warbaahinta ku jira ama siyaasadda ku jira inay ciidaas ka tira badan yihiin dadkaas oo dhan ma hal dadka lagu gudbiyo ay ugu weyneed wixii ay ka shaqeynayeen. waayahay ugu dambeyn Xasan Stiila waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo waxyaabaha aadka lagu qadariyo ka mid ahayd inuu gacan qabto saxafiyiinta gaar ahaan saxafiyiinta raba inay dalka waliba intii colaadaha ay socdeen dibadda inay aadaan ama dibadda aaday dhinacaas bal ka waran gacansiinta xagga warbaahinta wariyaasha marka maaragtay laga hadlaayo arrinta ku saabsan taageeridda wariyaasha jiilka ah ee soo korayay ee saxaafadda kusoo biirayay Axmed runtii anaa ka mid ahaa dadkii uu sida gaarka ah maaragtay u tala siinayay saxaafadda u fahamsiinayay maaragtay way aragnimadiisa ula wadaagayay oo ku saabsan sidii shaqada warbaahinta loo sii lahaa dalka gudihiisana maaragtay dhalinyaradii uu soo gacan qabtay runtii waa kuwa maanta warbaahinta iyo warbaahinta dibadda runtii dhalinyaro badan uu soo saaray oo aan ka marqaatay ahay oo aniga ka mid ahay iyo maaragtay kuwa kale oo maantaba weli la sii shaqeeya Hiiraan online marka jiil wuxuu soo saaray wax badan wadanka warbaahintiisa u taray. waayahay ugu dambeyn dhinaca qoyska haddaad xogogaal aad u tahay Axmed Guure muxuu ka tegay xaaladiisii ugu dambeysayna bal nooga waran geeridiisa? sida maaragtay Axmed kabtan Axmed Guure 7 caruur oo ka tegay iyo 3 caruur uu awow u ahaa
wiilkiisa oo axmed guure kusimaha tafaftiraha hiiraan online ahaa ayaa hadda doorkii maamulka dhinaca tafaftirka iyo maaragtay ku wareegaya. axmed maaragtay nin wuxuu ahaa bulshaawi ah oo runtii qoyskiisuna aada u jeclaayeen. kaasi waxa uu ahaa xasan stila oo ka mid ah tafaftirayaasha barta hiiraan online oo aan ka wareysanaynay geerida ku timid allaha u naxariistay axmed guure oo ka mid ahaa aasaasayaasha warbaahinta online-ka kuwooda muddada dheer shaqaynayay oo ku geeriyooday magaalada Ottawa dalka Canada oo nooga warbixinayay bal aqoontii iyo way aragnimadii kabtan axmed guure oo u lahaa dhinaca warbaahinta iyo dhinaca duuliyanimada. haddaba dadka ay soo wada shaqeeyeen muddo dheer aadna u yaqaanay waxaa ka mid ahaa wariyaha cabdulcasiis axmed barrow oo ka tirsan laanta af soomaaliga ee VOA-da. cabdulcasiis horey waxa uu ula soo shaqeeyey axmed guure gaar ahaan barta hiiraan online. cabdulcasiis soo dhawow bal aqoontaada iyo way aragnimadii aada u lahayd axmed guure haddaad noo soo koobto. allaha u naxariisto axmed xaaji cilmi guure oo ahaa nin runtii himilo fara badan leh oo hal wanaagsan lahaa. axmed intaan ka aqaano wuxuu ahaa insaan suuban oo afgaaban aada u shaqo badan islamarkaana wax ka hooseeya soomaalinimada aan ku qancin. runtii wuxuu ahaa qof soomaali ah islamarkaana aaday ugu weyneyd in uu yahay qalinka waxa ugu awooda badan ee bulshada soomaaliyeed maan ahaan iyo garaad ahaanba lagu dhisi karo. wuxuu ahaa qof aaminsan in runta la sheego dhexdhexaad laga noqdo xaaladaha siyaasadda dalka ka taagan, warbaahintuna ay fahanto aqoonta iyo awoodda ay u leedahay bulshada soomaaliyeed. runtii hilimka saxda ah ee wanaagsan in lagu jiheeyo. axmed intii aan la shaqeeyey runtii wuxuu ahaa nin aada u talo badan. wuxuu ahaa nin hanaanka tafatirka hiiraan online oo ku waday oo kale ay aada ku ashqaraar gelinayso. wuxuu ahaa nin talo badan. wuxuu ahaa nin markay xaalad adag taagan tahay in wax laga qoro golaha ama guud ahaanba qorayaasha taladooda isku keeni jiray. axmed waxau ahaa nin saaxiib ah. runtii weli way yar tahay dad dhifa ayaan ku arkay inay lahaayeen dabeecadda noocan oo kale ah in dhalinyarada lahaayo awoodooda la tuso. waxyaabaha una dhihi jira oo kale waxay ahayd annaga runtii wixii aan soo qaadan karo waa soo qaadanay. dalka waa dhaxal haraya. bulshada soomaaliyeed adinkaa indhow ah. taariikh dalkan ha loo reebo. marka wuxuu ahaa nin runtii axmed isagoo kale ay ku yar tahay dadka soomaaliyeed in laga dhaxelo. maxamedow axmed marka laga yimaado inuu aasaasaha iyo tafaftiraha hiiraan.com ama hiiraan online oo ahaa, si kale ayaan saaxiib u noqonay. aada ayaan sheeko wadaag u ahayn muddo. waxyaabaha ka dhex buuxayay kulankeena ugu horeeyay uu iga sheekeeyey weliba mar uu xamar yimid sanadkii 2021 miyuu ahaa mase 2020 exactly hadda ma xasuusto. waxa uu sheegay safarka uu yimid inuu yahay bal in dib loo raadiyo oo lasoo kiciyo diyaaradii Somali Airlines oo axmed duuliye ka ahaa xilli hore. waxa uu sheegay mas-uuliyadaasi in si shakhsi ay u saaran tahay. marka waad dareemi kartaa nin shaqo umadeed sameeyey 1999 hiiraan online hawada soo geliyay weliba xilli marxalad adag lagu jiray. mar kalena raadinaya in diyaaradii Somali Airlines lasoo kiciyo. runtii waxaan ku tilmaami karaa axmed qofka dhintay ma ahayne axmed wuxuu ahaa mas-uul iyo himilo qaran oo soomaaliyeed oo naga tagtay islamarkaana qof kasta oo soomaaliya ay mudan tahay runtii in loo duceeyo. inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. aad baan uga murugooday geeridiisii aadaynay taabatay. waayahay cabdilcasiis, arrintan dambe aad ka dhawaajisay dad badanna way khireen in uu ahaa nin ay ka go-nayd bal in dib loo soo aasaaso diyaaraddii caalamiga ahayd ee Somali Airline oo uu muddana kasoo shaqeeyey. bal ka waran dadka noocaas oo kale markaa ka hadasho soomaalida ma isleedahay waa ku yaryihiin? waadna xustay dadka raba bal in dhaxalkii ay ka tageen
ama ay horey uga soo shaqeeyeen in dib loo soo yagleelo oo lasoo nooleeyo? maxamedow dadka aan la kulmay runtii aaday u badan yihiin intii aan saxaafadan ka shaqaynaya muddada aan ku jiray waan arkaya dad qurbaha kasoo laabtay fursado ganacsi raadinaya, waan arkaya dad iyagoo qurbaha ka yimid xelal raadinaya, waan arkaya dad iyagoo qurbaha kasoo laabtay ama aqoon sameeyey raadinaya fursado si shaksi ah noloshooda iyo magacooda ay ku dhisaan. laakiin axmed markii aan ku kulannay hotel ku yaalla magaalada muqdisho aad ayaan waqti dheer u qaadanay runtii. waxa xitaa iga sheekeeyay madax kala duwan oo soomaaliyeed oo talada ugu sarreysa dalka joogtay inuu kala hadlay oo diyaaradii Somali Airlines in dib loo soo celiyo. marka waa dareemi kartaa qof aan isaga fursad raadinayn, laakiin waxa uu baadi goobaya ay tahay dhaxal iyo dan qaran oo bulshada Soomaaliyeed ay leedahay. haddana madaxdii ugu sarreysay ee dalka u imaanaya kana dhaadhicinaya in arrintaasi sida looga shaqayn kara laga fakero iyo xitaa in lagu bilaabo diyaarado kooban waa waxay noqotay runtii wax nafteyda awood ku shubay oo muujin kara qofka in danta ummadeed iyo horumarka bulshada iyo xitaa dowladnimada iyo fikirkeeda iyo falsafada lagu dhaqaajin karo in qof ay ka imaan karayso bulshadana uu saameyn karo. marka waxay ila noqotay markii axmed muddo aan ka wada sheekaysana arrintaas waxyaabo oo yaa badan wuxuu iga sheekeeyey diyaaradda Somali Airlines macnaha ay adduunka ka lahayd, qaaradan Africa siday ay uga dhignayd, wuxuu iga warramay safaradii uu duulay waxbarashadiisii Jarmalka oo kale axmed uu iga sheekeeyey. marka axmed waa dareemi kartaa inuu ahaa nin xabiib ah runtii oo ximiladiisii qaybo kamidana hirgeliyey, qaybo kamidana weli shaqeeyaan oo dhaxalkiisii uu shaqeynayo. marka axmed geeridiisa markay soo gaarto runtii waxa ugu weyn ay soo hor istaaga waxay ahayd qofkaasi geeriyooday ee Soomaaliga ah bal waxa ku dhex noolaa intay la ekaayeen iyo xajmiga ay lahaayeen. marka waxaan dhihi karaa qof isagoo aamusan haddana ka shaqeynaya bulshada oo aan isku jirin ay ahayd. sida dadka qaar markay wax qabanayaan oo kale aad bay u jecel yihiin inay shaac u noqdaan, laakiin axmed wuxuu ahaa qof shaqo oo shaqadiisu ay banaanka taallo oo ximiladiisa iyo weliba waqtigiisa iyo lacagtiisa ku bixinaya. allah u naxariisto. runtii qof weyn ayaa Soomaaliya ka baxay oo runtii mudan qof kasta oo Soomaali ah inuu u duceeyo. axmed wuu noo shaqeeyay laakiin ducuu nooga baahan yahay maanta. waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaaliyeed ilaahay hor istaaga salaada markuu dukado axmed abaalka uu nagashto waa inaan ugu duceyno dhahno ilaahu sidii uu noogu shaqeeyey wax badan uu noogu qabtay dambigiisa u dhaaf. marka runtii qof qiimo badan oo ahaa wax kale oo aan ku sifayn karo maxamedow aan axmed aan wanaag ahayn kulley ma jiraan. waaya cabdilcasiis, dhinaca warbaahinta haddaan kusoo laabano, warbaahinta Hiiraan Online marka laga tago wararka inay dhexdhexaadnimo ay usoo gudbiso, sidoo kale waxay noqotay madal ama goob ay isku soo fagaareeyaan ama ay isku soo bandhigaan ama fursad u ah qorayaasha iyo dadka leh mihnada oo aragtiyaha faallooyinka lagu soo bandhigo. bal dhinacaas ka waran. sida la socota Hiiraan Online dhowr qaybood bay ka kooban tahay. qaybta wararka Soomaaliga lagu qoro, qaybta wararka Englishka ku baxo lagu daabaco, iyo qaybta fikradaha ama opinionska lagu qoro. waxyaabaha yaab kale waxay ahayd markii aan anagu ahayn qorayaasha Hiiraan Online si gaarana waxaan uga shaqeynay wararka. maxamedow wararka Soomaaliya markii aad tahay qof warbaahin xajmiga leh ka shaqeynaya, warka yar ee la qorayo ee bulshada loo sheegayo axmed wuxuu noo tilmaami jiray inay tahay ammaano. waxa aan sheegaynana yihiin kayd haraya maalinta qiyaamana la isweydiinayo. marka wuxuu nagu qasbi jiray warka inaan aad u hubino oo runtii aada looga fakero waxa la qorayo, qof inaan lagu xadgudbin, inaan been la sheegin, in qoraalka afka Soomaaliga aada loo qiyeeyo. marka waad dareemi kartay muhiimada uu gelinayay
waxa uu ahaa waqtiyada la shaqeeyo aad u kala duwan yihiin geeska africa oo dareemi kartaa soomaaliya iyo canada oo kale ama north america aad u kala waqti duwan yihiin waxa waa qof had iyo jeer teleefanadiisa la helo isaga kusoo wacaya qalab haddii uu dhaco kale si oo saaxiibtinimada loo soco weliba arkin axmed iyo qof wada shaqeeyaan oo ishaysta ama isu qaylinaya laakiin waxau ahaa xitaa haddii uu gaadi jiro si oo dadnimo leh qof u fahmo qofka soomaaliga ah oo la shaqeeya qaybta opinionka ama fikradaha lagu daabaco markaan imaado inta badan fikradihiisa waxay ahaayeen kuwa lagu soo bandhigi jira halkaasi kuwa aan hadaf lahayn oo wax dhisa ama wax aqoon soo gudbiya ama taariikh iyo sooyaal lagu soo bandhigo ama dad waayo aragii ay wax ku qoraan ama dad si uun u arka aragti dowladda soomaaliya lagu dhisi karo ama dowladnimadeena qiimo u yeeli karo lagu soo bandhigo marka talooyinkana waxay ahaayeen ama fikradaha halkaa lagu soo bandhigo kuwa aada u sarreeya waana laga dareemi karaa nuxurka halkaasi lagu qorayay 25 sano inaad bulsho soomaaliyeed hayso oo weliba aad qoraal ku hayso lagu soo hirto halkaasi wax qiimo badan waa xuleyskeeda leh waxyaabaha kale oo yaab kale oo Iran online aan Axmed shaqadiisa ay dhaxalka u tahay kamid ah xitaa ardayda jaamacadaha ay bariga Afrika iyo kuwa Soomaaliya wax ka qora waxay ahaayeen meelo ay ka qaataan researchka ama qoraalada ay sameynayaan meelo ay ka xigtaan ay Iran online ka madaxay waana tacabka uu geliyay qaarkood ayaa la dhigay meelaha wax ku publish gareynaysaan meel la yaqaano oo qiimo laha noqoto meelaha marka dadka Soomaalida article-ka ay ku qoraan haddana ay diri jireen waxaa kamid ah Iran online intaan aniga aan ka shaqeynayay oo tariyaashada kamid ahaa ama qoraal dadka wax ku qora maxamed waxaan aad u arki jiray dadka duwan oo Soomaaliya ajnabi leh oo xog aan qornayna weydiinaya inay xigtaan ama ay qaataan ama qoraal ay sameynayaan ay ku daraan marka la dareemi kartaa shaqada meesha taalay dad kooban ayaa fahmi kara tacab badan iyo waqti badan ayaa ka galay bulshada Soomaaliyeed markaas Allah u naxariisto maanta waa uu dhintay waxaan si gaar ah ugu taasinayaa qoyskiisii qaraabadiisa iyo ehelka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan si gaar ah waxaan ugu taasinayaa dalmar oo ah wiilkiisa haddana la wareegi doono shaqadii aabihii Allah u naxariisto bulshada Soomaaliyeed uu hayay